بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيران iyo Mareykanka duqeyn soo laabatay laakiin ogow marba marka ka dambaysa way kasii xoog badan tahay duqeymihii hore. xalay 9 goobood ay Mareykanka sheegeen inay Iiraan ka weerareen, yani waa 9 target. Iiraan ayadana sidaas oo kale way balaarisay weerarkeeda xalay. maxaa la isku hayaa horta weeraradan xabajoojina jirtee way ay u soo laabanayaan? hadalkii Trump ee ahaa in xabajoojinta ay dhamaatay heshiiskan uusan waxba macna sameeyeen miyaa si toos u bilowday? waa isul taagayna biidin Allah taala. sidaas oo kale aan ku bilowno. nacam, Trump diyaaradii maxaa looga bedelay? maxay tahay cabsida? Turkiga wuxuu ku yimid diyaaradii cusbeed ee Qatar, laakiin ku laabashada waxa dhacday kuma usan laaban. diyaaradii hore oo wayeelka ahayd ayuu ku laabtay. ingiriiska uu tagay taasoo ingiriis hadana ku bedeshay. waay intaasoo diyaarada loo kala bedelay? hadal waxaa jira marka shalato asagoo shir jira ay qabanaya Trump uu yiri waa in Iiraan ay doonayso inay asaga disho. waliba hal mar ma oonan dhihin, marxalado kala duwan ayaa shalay uu ku sheegay inay daba taagan tahay, inay isku dayso inay disho, inay hadda haddii ay maxaan ku dhahay qorshahaasi ay u fuli karto, macnaha ay fuliso, in Iiraan macnaha ay waalan tahay oo hogaamiyaal waalan ay ku xiriiraan oo amara khaldan iska bixin karaan macnaha sidaa ay ku toban karaan, ku dili karaan. iyo hadalada noocaas oo kale oo soo laabtay Iiraana iraadsanaysa. bal falanqeeyash maxay kala yihiin? maxaas arrintaasi dabcan ka jira macabsi keliya aan isul taagan hal mar. ugu horreyn falanqeeyash waxay leeyihiin Trump bakrintan waa la geliyey, waa loo abuuray. ujeedadana waxay ahayd in nacam Iiraan u fududaato inuu weeraro. maxaa yeelay qofka marka aad dhahdo qofkan cadow ugu yahay oo ay ka dhaadhacdo, markaasi wax walba aad ku sameynayso yani waxa ay ka imaanayaan naceeb qofka uu qabtay iyo aarsi iyo intuusan yani waa cadow adiga aad ka hortagayso ugu yaraan. yani Israa'iil waxay gaday marka arrinta ah Iiraan Mareykanka dhexdiisay rabtay inay Trump ku disho. loobiga Israa'iil, qolooyinka taageera Israa'iil arrintaasay gadeen. arrintaasi dagaalka Iiraan Trump hadda uu go'aansaday daraad inuu ku qaado sababay u ahayd oo ay ku jirtay hadda maalan shir jaraa'id maahan ay sheegay waraysyadii Netanyahu uu bixiyay ee dhowrka xaba ahaa. hadal waxaa jira Netanyahu intentionally ku talagal oo u soo celinayay oo ah Iiraaniyiinta haddeertan ayagoo tacsi qabsanaya ayaa waxay leeyihiin Trump baan dilaynaa, Trump baan necebnahay. maxay ugu celinayaan? anigana waan ku jira dabcan, laakiin Trump baa dilayna. yacni waxay arkeen Israa'iiliyiinta sida falanqeeyaasha ay leeyihiin ay akhristeen Trump inuu yahay qof selfish ama anaani, yani aniga yani in la amaano yani waa ku jeclaanaya qofkii u amaano, yani qofka diida ama nibcaada ama wax ka sheegana uu nibcaanaya sidaas oo kale. marka kaarkaas ay ogaadeen in uu dacfigiisa yahay ama weak pointgiisa yahay ay u isticmaalayaan. marka Trumpna maskaxdiisa dajaa waxaa gashay xataa ma ahan sirdoon iyo kada. ileen sirdoonku waxay leeyihiin arrintan yani sidaa uma weyna. Iiraanna rabitaan oo ay ku disho ama ay ma jirto. macnaha warbixinada sirdoonka Mareykanka ay soo gudbinayaan xataa kuwii hore sidaas oo kale ahaayeen. no cid ku dhow malaha, cid ku taaban karta saas oo kale. ama laakiin asaga jaa way ka dhaadhacday Netanyahu iyo Israa'iil qorshahoodii ahaa in Trump yani ay ka dhaadhiceen, way ka dhaadhiciyeen. marka cabsidaa darteeda ayaa waxaa keentay sida la leeyahay diyaaradihii xataa in la kala bedelo oo hal diyaarad keliya uusan Trump intuu ku imaado uusan ku laaban. caadiyan diyaarad keliya la isticmaali jiray. marka arrintaasi waa taa. anu imaano maxaa la isku hayaa? maxaa yeelay weerar culus ayaa dhacay ilaa ay subaxan weerarkan wuu socdaa oo Iiraan way wadaa. inkastoo hadda Mareykanka hadalkii ugu dambeeyay oo ahaa ay dhaheen macnaha waxaan adiga soo gabagabaynay in weerarka uu socdo, yani adiga weerarka waa soo koobnay. nacam sidaasay dhaheen. waa Mareykanka. horta waxaa la isku hayaa waa Hormuz waxay noqon doontaa goob sidan u taagnaata dhibaatadeeda qof un ama qolo un ay adkaan doonta. tusaale xalato weerarka marka u dhacayay ma la filayay? haa iyo maya. waa la filayay oo habeen horeba u geystay iyo habeenkii ka horreeyay. marka waa la filayay saas ahaan iyo hadalkii Trump marka la fiiriyo. laakiin lama filayno weerar iyo dagaal toos ahoo socdo ma jiro.
marka waxa la isku ogyahay habeen walba dagaal inuu dhacayo yani lama filin sida ahaataba weerarkii marka uu dhacayay waxa ay dhaheen central command-ga yani taliska dhexe ee Mareykanka ciidamadooda waxaan hadda amar ku helnay in aan qaadno weerar kaasoo aan ku baabi'inayno awoodda Iiraan ay ku controleyso ama ay ku handadayso marinka Hormuz iyo controlkiisa dhowr goobood ayaa noo cayiman inaan weerarka ku qaadno kadib duqeyntii marka ay geysteen oo 9 goobood hadda ay weerareen waxay dhaheen waxaan weerarnay goobo lagu keydiyo gantaalada goobo difaaca cirka ah goobo droneska goobo lagu sameeyo maxaan ku dhahay gantaalada iyo waxay sameeyeen oo ay weerareen goobo ay dhaheen maraakiib iyo hub culculus iyo kada ayaa yaalay sida ay sheegeen almuhim waa 90 targets waa 9 target macnaheeda Iiraan hadda si tartiib ah ayaa loogu jicinayaa si awoodeeda macnaha oo Iiraan loo baabi'iyo ama loo dhimo weeraradii hore hadda laba qolo isdagaalaysay ahaayeen laakiin hadda sidaas ayay Mareykanka go'aansadeen okay Iiraan markiiba dabcan sida muuqata way sugaysaa weerarka maxay la weerarka marka lagu soo qaaday ma uusan macnaha raagin oo intaas saacad ma una qaadan markii la soo weeray hore ka soo weerar tagtay ayadana weerarka way wada ilaa ay subaxan waxay weerartay marka sida caadada ahayd Kuwait iyo Bahrain laakiin markaan halkii saldhig ay weerar jirtay ma aysan weerarin laba saldhig ay ka weerartay Kuwait iyo Bahrain akhbaar waxa jirta sheegaysa in Qatar xataa weerartay qaacidadii ku taalay Xudayda inay helaan umanaynaaya ama Cadiida inay helaan umanaynaaya almuhim ay ku taalay Qatar taa waa la sheegaya marka weeraradaas kala duwan ay Iiraan ka geysatay ayadana waxay ku goodisay haddii Mareykanka arintan uu caadeysto in ay balaarin doonto tanna ay digniin tahay qadar yani hitaadan digniin ay tahay saas oo kale waxaa hadal hadda dhowr saac ka hor soo qoray Maxamed Baaqir Khalibaaf oo ah gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan wuxuu leeyahay America weli ma aynan baran in bullying qof ay macnaha dad ku sameeyso oo ay balamaha jabiso oo yahay no longer cost free in hadda kadib yani uusan ahayn wax iska lacag la'aan ah yani wax baad dishay waa lagu aamusaa inaan ahayn macnaheedu wax baad dishay waa lagu dilayaa wuxuu yiri marka si toos ah idinku dhigo if you strike haddii aad no weerartaan ama aad weerartaan you will get hit adiga waa idin jukeenaya juwa idinku dhacaysa waa idin weeraraya idinkana marka waxaana idin leeyahay hoos ayaad ku sii dhici doontaan marinka Hormuzna macquul ma ahan sinaba inuu u furnaado ama uu ku socdo qaab aynan Iiraan rabin ogaada casharkaasi marinka Hormuz yani wuxuu ku furmi doonaa kaliya on our terms yani annaga qodobada annaga aan dhigno iyo rabitaanka annaga aan rabno sida aan annaga u rabno u dhacaya niyada ka saara weerare iyo goondi iyo kuma furmi doono hadda isleediin weeraradan iyo goodigan ay marinka Hormuz ku furmi doonaa niyadiina ka saara waa hadalkii ugu dambeeyay ee Khalibaaf okay arintan maxay wadataa fanaqayaasha ay leeyihiin waxay wadataa dabcan nacam Trumpna hadalkii cuslaa ee heshiiska inuu dhamaaday ahaan uu sheegay Bahrain ayaa la geliyay ama gashay in diyaaradihii la kala bedelo inkastoo waxyaalo kale la dhihi doono oo hadal waxaa jira uu soo qoray oo dhahay macnaha askarteena rabay inay aragto diyaaradda cusub saasan uga soo tagay iyo oo ama Ingiriiska loo dhigay iyo wixii la midka sawir la soo geliyay oo aad arkayso askarta Mareykanka isku sawiraysa saas oo kale almuhim laakiin Bahrain inay jirto waa factor jira sida afkiisaba uu ka dhawaajiyay xataa ma ahan hadal la yiri yani asaga sheegay in ay Iiraan daba gashay xataa hadda NATO ay rabto soo u joogo kulankiisa inta hadda uu ka tagay ay rabto inay disho almuhim waa intii ugu dambeysay intaas aan ku soo koobaya salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh